بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وأبو بكر الشيخ أحمد البدري وحان هاي صحفي قراء صوماليات وحان رواينا فرين وعي قلينا هل كان كسو دوبة وحان رواينا إن أمهات عليو بهذا أهوية السوء معناها تاكتي وعي قلينتا كل شيء صوماليات قارهانا قويسسكا إيو هرمارين تهوينك إنتبا waxaan rabaa inaan diiradda ku saaro fariinteydan lamaanayaasha Soomaaliyeed ee markaas isguursaday ee isqaba kuwa muddo isqabay oo caruur isu leh ama aan isu lahayn kuwa muddo fog isqabay oo isku soo macnaha raagay iyo kuwa doonaya markaas inay isguursadaan oo commitment wax la yiraahdo ama ahdi ballan uu ka dhaxeeyo أحدقاس أو ugu talagaleen inay ku saleeyaan mustaqbalkooda waxaan rabaa inaan wax ugu horeeyo oo qofka bini aadamka lagu kasban karo qodobka koowaad waa xushmada wax la yiraahdo qofka bini aadamka wuxuu kaaga baahan yahay oo gabadha xaaskaaga noqonayso tusaale haddii aad nin raga tahay waxay kaaga baahan tahay xushmadaas oo isugu jirta in aad iyada mararka qaar waxaa laga yaabaa raggeena in gabadha markii uu rabo ninka ragga oo wali ay banaanka kala joogaan oo aad u amaano u dabacsanaado u dhoola cadeeyo u dabeecad wanaagsanaado raxmad badan u muujiyo laakiin markuu guriga keenay dabeecadii ahayd naag beena lagu soo xirigeliyaa runaa lagu dhaqaa inay soo baxdo waxaan rabaa inay taas meesha ka baxdo oo gabadha run lagu soo xirigeliyo runna lagu dhaqo gabadha marka ay ka rabto xushmada ugu badan waa marka ay guriga ku joogto waxay ka rabtaa xushmadaas inay kamid ahaato dhaqaaleynteedii inaad mar walba kula hadasho ereyo raxmad leh u sheegto inay qurux badan tahay u sheegto inay faraxsan tahay u sheegto in aad ka hesho dhoola cadeynteedii u sheegto in aad macnaha la-aanteeda joogi karin u sheegto waxyaabo badan oo qalbigeedii macnaha taabanaya ku xiraayo qalbigaaga taas waxaa ku xigo gabadha waxay u baahan tahay ninka ragga ah الرجال قوامون على النساء إلهي سبحانه وتعالى وحيوقف بهانتا إنك رجع إنه مركو قرآن سنة حتى قرآن سيس وقبل قرآن سنة هاتو رحمتي كالجعيل كموقت مركز سوء إنه قدوا الله عبد حتى هاتو سنقصر كوهين وأنا قبل حاس كاري أما جعل صدى قدوا الله عبدين كرتا قدوا الله عبدين تاري كيني كرتا قلبي جدي إن أنا فرحتكو أبورتهم فشمت بدن إن أقول يسدو جعش عيني ترى waxaa kaloo muhiim ah labada qof oo isqabta marna inaysan kala baqaynin gabadha haddii kaa soo horbaxdo xaaskaagii ah haddii xataa daqiiqada ka hor isugukiin dambeysay dhunko macsi meeshaanad ka sii jirkeeda waa isugu mid wejiga ka sii bushimaha ka sii indhaha ka sii wejiga meeshaan ka sii gacanta ka sii adiga horta kaa soo go'do in dhunkasho dhinaca ka timid oo hadiyada ay gabadhu hesho waxaa intaas macnaha weheliya oo gabadha inay reerka ku dhaqdo ku faraxsanaato oo farxad la ku dhasho marka qaar aas u noqon kara inaad mar walba gabadha runta u sheegto noloshu ma aha mar walba sidii qofku uu guriyooday uma qurux badnaa culeysya imaan kara duruufa imaan kara farxada imaan karta muruga imaan karta wax kasta imaan kara duruufa ilaaha abuuray mar kasta gabadha inaad runta u sheegto haddii dhaqaale la-aan hadduu marka qofka uu dareemayo inuu gabadha u sheego hadduu dhaqaalaysan yahay inuu gabadha runta u sheego haddii macnaha uu daruufaysan yahay gabadha u sheego hadduu xanuunsan yahay gabadha la wadaago farxadeeda murugadeeda sidoo kale ka warqabo akhriyo shucuurteedii wejigeedii wax iska bedelaya markay faraxsan tahay iyo markay murugaysan tahay gabadha isku mid maaha gabadha faraxsan ee kusoo hor fadhida waa hadiyad farxadaas waa hadiyad adaa dareemaya qalbigaaga ka dareemaya wejiga macnaha gabadha ayaa wuxuu ku siinaya waxyaaba badan waxaa loo baahan yahay marka in runtii aad gabadha ku abuurtay ayadana runay kuu sheegaysaa saaxiibay kaa dhiganaysaa dhabo waxaan u baahannahay marka in la dhiso wax la yidhaahdo aayatiin wanaagsan waxaa rabtaa gabadhan aad soo guursatay gurigaad keensatay in ay reer kuu noqoto ubad kuu dhasho ubadkaas ay noqdaan ubad la yidhaahdo ubadka hebel qof kastoo wuxuu jecel yahay wiilkiisa iyo gabadhiisa jidka markay maraayaan kuwo bulshadu ku faraxsantoo asaga loo nisbeeyo hebel ilmihiisi la dhaho inay noqdaan ee ma rabo in la dhaho war mujeedaa waxaas kii hebel ahaayaa dhale ma rabo si ay taas u dhacdo marka gabadha aayatiinka aad u dhisayso daryeelkoodii diyaarintoodii barbaarintoodii gabadha u barbaari sida ubad aad dhashay gabadha xaaskaagii ah
waxay kaaga baahan tahay barbaarin la mid ah tan ubadka, sababtoo subax kasta waxay kaa rabtaa farax gelin, subax kasta waxay kaa rabtaa ka qoslin, subax kasta waxay kaa rabtaa macnaha inaad uga tagto hadiyad aan ahayn material wax la taaban karo, hadiyad qalbiga kasoo go'day inaad uga tagto oo farxadeedii qayb ka ah. galabtii markaad soo noqotid oo shaqada kasoo noqotid waa sabab. haddaad maalintaas fasax tahay inaadan banaan ku qaadan oo aad ilmahaaga la qaadato, dhisidda I think wanaagsan ay ka mid tahay gabadha waxbarashadeedii iyo ubadkeeda waxbarashadooda inaad ku dadaasho, aad nafta ag dhigto, u shaqaysid oo dadaal gelisid oo juhdi gelisid, aad ku xisaabtanto ubadkaaga 20 jir markuu soo gaaro inuu noqdo ubad aad ku intifaaci karto, ayagana naftooda ku intifaaci karo, xataa haddii ay ubadkaas reer yeeshaan reerkooda ku filan, waalidkoodina saacidi kara inay noqdaan. si ay taas u noqdaan markay yar yihiin, hooyadoodna saacid, ayagana saacid. waxaa kaloo u baahan in macnaha aan ka fekerno xiriirinta gabadha. dad badanaa waxaa arkaysaa mushkilada waxay ku qabaan xiriir lamaanihii. gabadha xaaskaaga hadda haddaa kasoo tagtid oo aad kala maqantihi 5 daqiiqo, xiriiri la hadale, waxaa dhahdaa xabiibti see tahay, macantu see tahay, xaaladaadoo side, waa kuu xiisay, erey raxmadla kula hadal, dareensii daqiiqadaha ka maqneed inaad tabaysay, dareensii qalbigaada in macnaha marna aysan ka faaruqin, dareensii sababtoo ah ammaantaas iyo raxmaddaas meelaysan gacantaadi gaarin ayay gaaraysaa. waxyaabo aysan lacagtu qaban karin ay qabanaysaa. waxyaabo macnaha wax yar oo raxmado aad muujiso, dareen ku muuji ama ku muuji hadal ama ku muuji ficil, saddexdaas unbaa wax lagu muujiya ayaa waxay qaban karaan shaqo aadan gacmaha ka qaban karin. mashiin kastoo aad soo qaadatid, combyuutar ha ahaado, cagaf ha ahaado, aysan qaban karin. gabadha qalbigeeda adiga ma dhaqi kartid, waxaad rabtidna kuma qoran kartid haddii aadan la imaan saddexdaas midood. inaad xushmad aad ku siiso, si dareen ah, si ficil ah iyo si hadal ah. taasaa waxay keenaysaa marka in gabadhi adiga ay kuu noqoto qof mar walba kugu xiran, kaa maarmin, dareemayso maqnaanshahaaga inuu ayada u yahay dhib, dareemaysa la joogistaada inay ayada u tahay farxad. taasaa keenayso. waxaa ayadana ugu dambaysa dhaqaalaha. in badan oo ragga ka mid ah waxaa laga yaabaa in ay dhaqaalaha reerka sida loo maareynayo ayaga isku koobaan. gabadhu waa inay lahaansho dareento, waa inay dareento reerkan iyo ninka iskale iyo ubadkiisi inay ayada leedahay. hooyo waxay u tahay gabadha, guriga hooyaa leh, aabbo ma leh. guriga hadduu aabbo leeyahay muddo dheer ma sii socon karo. guriga waa inay hooyo leedahay, ninku waa inay hooyadu leedahay, ilmaha waa inay hooyadu leedahay, wixii ay leeyihiin waa inay hooyadu leedahay. talooyinkaas dhan marka go-aan lagaga gaaraya mustaqbalka waa in ayadu ay saldhig u noqoto. si ay saldhig ugu noqoto marka waxaa loo baahan in kalsooni lagu abuuro. kalsoonidu marka lagu abuuro dhaqaalaha reerka iyo maareyntiisa iyo waxudhigiisa iyo dhigaalkiisa iyo ayada laga talageliyo. taasaa waxay keenaysaa marka in gabadhu ay noqoto qof reerka maalinta uu soo liico uu ku taagsado badbaadis. laakiin haddaad wax walba ka qarsato, haddii gacantaada eber ay soo noqoto, ayada waxaa laga yaaba kun shilin ay aruurisay sanad kadib inay kuu keento 365,000 shilin Soomaali. laakiin adigu ninka ragga ma samayn kartid, waxyaaba aadan samayn karin, waxyaaba aadan ururin karin, waxyaaba aadan dhaqaalaha ka fikirayn inay yihiin ayay hooyadu ka keeni kartaa. marka talada guud waxaan kusoo xoorinayaa anoo fariinteyda soo gabagabeynaya, ninka ragga ah waa inuu gabadha daryeelkeeda 90% fariinteyda waxaan rabaa inaan ragga xoog ku saaro. reerka aad dhistay ha u dhisin si oo muuqaal u dhisi niyad ah, u dhisi qalbi ah. sida qalbiga iyo niyadda markaa u dhistid, agabka yara guriga farxad ay ka jirto dirinaa la iskula joogi karaa. guriga aysan farxad ka jirinna alaab kastoo aad soo dhigtid, kumnaan kun haddaad kasoo bixisay, qofka ma qancinaysa haddaysan farxad jirin. reerku waxay ku dhismaan farxad, kalsooni, isu sheegid iyo isdaryeelid. haddii raxmadaas isdaryeelidaas laga dhex waayo, agab guriga yaallo waxba ma abuuri kara. marka gabdhahana waxaan rabaa inaan intaas ayagana fariinteeda ugu soo gabagabeeyo. idinkana waxaa laydinka rabaa ninka ragga ah markuu kaa maqan yahay stress lama geliyo. fariimo badan oo gabdhaha maxaa ii soo weysay, maxaa u yeeli weysay, maxaa intaan oo dhan iga aamusantaa intaan dhihi lahayd, xabiibi waa ku tabaysee tahay dheh. haddii uu soo galo oo uusan ku soo wicin xataa weji farxadla ku qaabil, maanta waa ku tabay dheh, intaa iga maqnayd, intaa dhihi lahayd maxaa ii soo wici weysay. adiga su-aasha maxaa dhan meesha ka saar, farxad ku bedel.
adu kusoo xiisaya. Laakiin markii uu yimaado haddii aad mushkilad ku abuurto, markuu kula joogo un adiga un ku maslaxo, markaad fariimo isu direysaan is-eed ay idinka noqoto, inta badan is-eedku gabdhaha bilaabo, ragguna ma saxaan. Message kasta ama fariin kasto aad dirayso ha noqoto midaad ku sheegayso inaad qofkan kabitaankiisa iyo farxadaada inay ku dhisan tahay inuu qofkan kaa warqabo, midaad ku muujinayso. haddaad saas samayso qalbigiisa hananaysa wuu ku imaanaya. ogow gabareehe, ninka meeshii abumacaana laga dhugo aadaa, xataa haddii gabar uu banaanka ugu sheekeeya ay tahay, haddii xaaskiisana markuu yimaado kuleetiga inta qabato intee ku maqnayd, intee joogtay, maxaa umaan weysay, maxaa yeeli weysay ay tiraahdo, gabarna ee message soo dirtoo tiraahdo abumacaane waa kuu xiisay, abumacaanadaasuu dhegeysanaya nin. marka si aysan taas kuugu dhicin yaan lagaa badinine, abumacaanta badi, raxmada badi, qosolka badi, farxadda badi. asigana markaas adiga waxaad u noqonaysaa meesha kusoo xiiso kusoo hirto ugu yimaad. aada u mahadsantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.